الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. dhalinyaro waxaan joognay in maaragtay reer galbeedka dadka susuuban oo dhan dad caddaan ahaa inay ku tilmaamaan. waxaan sheegnay marka nimruud ayaan joognay. haddaba nimruud waxay ka sheegaan keliya inuu Mesopotamia dhulka loo yaqaano Babylon inuu joogi jiray ayay ka sheegaan, laakiin halkan inuu ka tegay ardu bunt bilaadul bunt inuu ka tegay way qariyaan. sidii ay iskugu dayi jireen faraacinadii inay qariyaan, sidii fircoonkii ramseski labaad la dhihi jiray. ramseski way badnaa, ramsesyaashii way qariyaan inta badan. Cleopatra ma sheegaan bataatan, waxay sheegaan keliya xabsashuudna taariikhdii baa fiday mar hore faaftay. tanna sidaasi lamid ah nimruud halkan kolkuu ka tegay ciidanka ugu xooga badan ee dhulkan ayuu haystay. markaan idin leeyahay soomaalida dhulka ilaa iyo saxaraha galbeed ayadaa maamuli jirtay, bimacnaa waxa weeyaan awood weyn bay lahayd. awooddii weyneed way kala wiiqday. awood kastana way jabtaa. goormay jabtaa? waa haddii cadaalad darro ay samayso. xukun kasta markuu cadaalad darro sameeyo wuu burburaa. si kastaba ha u burbureen, cadaalad darradaas ayaa burburinaysa. nimruud wuxuu tegay Mesopotamia, dhulkaasoo dhan xukumay ilaa wuxuu tegay dhulkan Falastiin, Gaza. taarikhyahanada qaar waxay yidhaahdaan ilaa Ramallah ayuu joogay uu tegey. qaar baa yidhaahda ilaa Jerusalem uu gaaray, laakiin anugu ma arag. haddaba ninkan nimruud dadka qof xun iyo qof wanaagsanba way leeyihiin. qowmiyad dhan oo wada wanaagsan la arki maayo adduunka, qowmiyad dhan oo wada xunna la arki maayo. laakiin innaga dad aad u xunna waa lahayn, dad aad u wanaagsanna waa lahayn. kuwii ahraamta dhisoo kale maalan, dadkii dhulkii udgoonka loogu imaan jiray ee dawooyinka laga soo doonan jiray ilaa bariga fog looga imaan jiray waa isla annagii. ee ganacsiga ballaaran adduunka oo idin la lahaa maca romaaniyiintii maca griigi halkan ay u soo doonan jireen ilbaxnimadooda way dhowdahay. nimankan romaaniyiinta iyo griiga waxaa buunbuuniya nimanka la yidhaahdo UNESCO ayaa buunbuunisa si taariikhdaadii asalka ahayd loo masaxo. ma ka sheekeeyaan, kama sheekeeyaan, mana soo hadal qaataan taariikhdaada asalka ah. maxay u diidayiin? way ka hinaasaan. wanaagga aan soo samayna ayay ka hinaasan yihiin oo maaragtay ka masayrsan yihiin. ma ogola. ebidkoodba sidaa bay ahaayeen. meel ay ku duulaan, ay burburiyaan, deedna ay billiqaystaan ka tagaan. laakiin halkan way u suurtogeli weysay. berigaa ayaga la odhan jiray romaaniyiintii griigii la odhan jiray, halkan way u suurtogeli weysay. way annagaaba dhul qabsan jirnay. dhulka markay nagu arkeen dhulka masar oo mediterraneanka u dhowaa, haddana halkan markay yimideen bunt way arkeen xukun dhisan, kala dambayn leh, ciidamo aad u lixaad badan jooga oo hub casri ah haysta. xilligaasi kan ugu casriyaysan buu ahaa nimruud. kolkaa kadib ayuu maaragtay sheekadiisii baaba'day. waayo xukun kasta markuu cadaalad darro sameeyo si xun buu ilaahay u galaa. nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ayaa ka baxsan waaye. dadna nebi ilaahay nebi soo dirsaday. yaa weylak filo waxaa imaan kara. sidaas lamid ah xukun kastoo weyn oo adag oo xoog leh kolkuu cadaalad darro sameeyo oo dadka uu maamulo cadaalad darro ku sameeyo wuu burburaa, daaqadu ka baxaa. weli taariikhda isma bedesho. waa sunna. walan tajid lisunnati illaahi tabdiilan walan tajid lisunnati illaahi taxwiilan. waa sunno ilaahay jirtay iyadoo qaab kale unbay soo martaa dunida.
nimankan iminka iswaalwaalaya meel hebel aan qabanin meel hebel way bililaqaystaan meel kastay tagaan berber iska berigay ahaayeen viking iska berigay ahaayeen dhul bay tegi jireen ummad bay ilaahi jireen baabi'in jireen marka halkan aan ku yara hakinaynaa haddii alla yidhaa laakiin wuu socdaa cashirka wuu socdaa dadka susuuban oo idil maysan wada caddeen oo sidaa gaalkaa ma ahayn qaar baa innaga ahaa qaar baa asalkooda halkan ahaa insha allah casharada soo socda la xidhiidh ogow laakiin qur-aanka baro tafsiirkiisa baro axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaamna baro kolkaabaa in badan ogaan kartaa oo sii shishaysa sir badan baa kuu soo baxaysa oo haatan kaa daahsoon haatan wixii lagugu shubo unbaa qaadataa iska diid heeryadaa gumaysiga iska qaada af qaali baad leedahay dhaqan qaali ah baad leedahay iska diida dhalinyaro aqoonta u soo jeesta oo aqoonta ku salaysiiya diinta islaamka ku salaysiiya insha allah waa guulaysanaynaa kulligeedna wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu